magacaygu waa Cabdicasiis Cawil Adar waxaan ka mid ahay musharaxiinta u tartamaya golaha deegaanka si gaarana ugu ordaya inuu noqdo mustaqbalka heerka magaalada Burco insha Allah taala ama duqa magaalada Burco hadii Ilaahay ka dhigo hadda waxaan horta dul taaganahay bridge number 1 ka magaalada Burco ama bridge ka weyn ee magaalada Burco hadba si loo yaqaano waxaan joogaa Dere bridge baan dul taaganahay waxaan ognahay doorashadii waa la kordhiyay taasi kama dhigna doorashadii dib loo dhigay macnaheedu kama dhigna inaan gacmaha laabano macnaheedu kama dhigna inaan raano doorashada maalinta la bilaabayo ayaan sugaynaa kama dhigna inayna waxba ku tari karin magaaladeena waxaan arkaynaa dawladii hoose oo waqti badan kaga baxayo inay burburiyaan xerooyinka riyaha qarashaad badan kaga baxayo waa in qorshe loo sameeyo marka hore inta aan la burburin waa in qorshe loo sameeyo xagga la geenayo xoolaha xagga lagu xareynaya waan ku dhaliilaynaa waan ku canaanaynaa in bridge-keeni iyo centerkii magaalada ay ku daafado ilaa ka aragta ay taalo oo dawladii hoose ay awood iyo lacag iyo qarashaad iyo cagaf ku kaxaysanayaan inay riyihii iyo xoolihii magaalada ay nagu dhaqnaa inay xeryaha ka burburinayaan energy awood in lagu bixiyo xerariyaad xaafadaha u dambeeya lagu doonanayo wax ka fiican halka qashinka inoo muuqda in la hagaajiyo oo bilicdii magaalada centerkii magaalada buundadeenan hoosteeda waxa yaala qashin aad iyo aad u badan waana centerkii magaalada laga soo galayay Dere bridge hoostiisa inaan ku qabto muhiim maaha waayo magaaladeeda inaan sawirro foolxun ka gudbiyo waxa ay dhaanta inaan gacmaha igula tagan ururiyo laakiin waxaan odhan karnaa ilaa iyo ila qabatay waxa yaala ku daafad baa taala dawladda hoose shaqadeedii weeyaan laakiinse muwaadinka marka gurigaaga agtiisa ay uskag tahay waa in damiirkaagu ku siiyaa inaad intaanay cid kaleba ku imanin inaan inagu gacmaheena ku nadiifin kareen waxaan bilaabaynaa laba olole ayaan bilaabaynaa olole waxa weeyaan nadaafadda magaalada Burco waxaan bilaabi doonaa kaambeynkii ugu weynaa ee mutadawacnimo magaalada Burco ay ka qayb qaataan ugu yaraan 100 qof oo reer Burco ah hadii Ilaahay ka dhigo ololihii muddada ugu dheer socday abid ayuu noqon doonaa ee mutadawacnimo magaalada Burco maxaa lagaga baahan yahay waxa lagaga baahan yahay marka koobaad inaad tahay qof muwaadina oo reer Burco ah oo doonaya magaaladiisa oo qurux badan waa ta koobaad talabaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan inaad soo qaadato majrafadaada ama farageetadaada inaad adigu soo qaadato inaga soo qaadanayna majrafadeena inaga soo qaadanayna farageetadeena inaga soo qaadanayna nusaacaheena iyo biyaheena shidaalkeena iyo gaadhigeena inaga soo qabnaa boqolka mutadawiciinta magaalada Burco ugu tala galay adiga ka mid noqon kara groupka WhatsApp-ka ayaad nagula soo biiraysaa kaaga muuqda page kaaga muuqda groupkaas ayaad magacaaga ku soo qoraysaa inaad diyaarteen oo ku soo qoraysaa number baad dooranaysaa 1 ilaa 100 numberkaas iyo badge-kaaga ayaa halka lagu soo shaacin doonaa waxaanad ahaan doontaa hadii Ilaahay naftu inagu simo qof ila shaqeeya